President of the Federal Government of the Republic of Somalia. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Koonfur Afrika. Madaxweynaha oo munaasabadan kaga qayb galay magaalada Pretoria ee caasimadda dalkaasi ayaa ugu hambaliyay madaxweynaha xilka cusub ee loo egmaday, isagoo ku bogaadiyay horumarka ay dowladda iyo shacabka Koonfur Afrika ku tillaabsadeen. Dhankiisa madaxweynaha cusub ee dalka Koonfur Afrika ayaa uga mahadceliyay wafdiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay u ajiibeen martiqaadkii uu u fidiyay ee ku aadanaa inay goobjoog ka noqdaan munaasabadda uu xilka kula wareegayo. Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay Koonfur Afrika waxa uu kulamo la yeelan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi, isagoona u kuurgalaya xaaladda iyo caqabadaha haysta.